Assalaamu calaykum. Anigoo ka jawaabaya dhowr su'aalood oo ku saabsan xubinka ragga in la dheerayn karo ama la weynayn karo. Waxaan jeclahay in marka hore aan xasuusiyo asxaabteeda Curus Media in wax kasta oo internetka lagu soo gudbiyo aysan run u qaadanin. Waan ogahay in internetka ay ka buuxaan kumanaan xayeysiimo oo ka hadlaya sida loo xoojiyo ama loo weyneeyo xubinka ragga, iyagoo soo qaadanaya kaniiniyaal, kareemo la marsado, qalab lagu dheereeyo ama qaliin lagu sameeyo. Kadibna qofka uu sidii uu rabay u noqonayo iyadoo wax dhiba uusan la kulmin. Laakiin arrinkani maxaa ka jira? Muuqaalkeena maanta ayaan kugula wadaagi doonaa xaqiiqda arrinkan iyo meesha uu ku salaysan yahay. Kadibna go'aan ayaad ka qaadan doontaa haddii aad tahay qof ka cabanaya. Ka hor muuqaalka, haddii ay tahay markii kuugu horeysay channelka aadna danaynayso barnaamijyada caafimaad oo caynkani oo kale ah, fadlan like dheh, subscribe-na saar channelka, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelinno ee waxtarka leh. Aan bilaabo fiidiyowga. Marka hore, wax kasta oo jirka muuqaalkiisa bedelo, ha ahaato xubnaha taranka ama jirka meelo kale oo ka mid ah, sida horaadada, barida, caloosha iyo wejiga, waa qasab in ay waxyeello ka dhalato muuqaal beddelkaas, kuwaas oo kala darnaan kara. Waana muhiim qofkii ku fekero arrimahani oo kale inuu ogaado waxa ay diintu ka qabto. Rag badan ayaan ku qanacsanayn cabbirkii ama qiyaastii Eebbe ku abuuray xubnahooda taranka, kuwaas oo aad u raadiya siyaabo kala duwan oo ay wax ku beddeli karaan, kuna dhacaan dabinka shirkadaha sida beenta uga ganacsada daaweynta cabashadaasi timaada. Waxaa lagu qiyaasaa in shirkadaha sanadkiiba ay ka faa'iidaan dawooyinka kobcinta raganimada $200 milyan. Baaris la sameeyey kadib, waxaa la ogaaday in dadka cabashadani muujiya markii 3 qayb loo qaybiyo in 2 ka mid ah aysan qabin ciladan, laakiin iyaga ayaa aaminsan in cabbirka ama dhirirka xubinkooda uu gaaban yahay. Sidaa awgeed, waxaa habboon inaad dhakhtar la xiriirtid inta aadan isticmaalin wax daawo ah ama qaliin lagu dheereeyo xubinkaaga. Waa muhiim in qofka uu ku qanco arrintaasi si aysan saamayn ugu yeelan xagga dareenkiisa iyo raganimadiisa, iyadoo ka qayb qaadan karta in qofka ay ku dhacdo diiqo, niyad-jab ama xanuun maskaxeed. Waxyaabaha sida dabiiciga aad u samayn kartid si aad u ogaatid cabbirka saxda ah ee xubinkaaga waxaa ka mid ah inaad xiirtid timaha ka sarreeya, maxaa yeelay tinta badani waxay u ekaysiisaa xubinkaaga mid gaaban. Haddii aad cayilan tahay, isku day inaad miisaankaaga dhinto, maxaa yeelay caloosha iyo dufanka ka hooseeyaba waxay u ekaysiyaan xubinkaaga inuu gaaban yahay. Ku dadaal caafimaadkaaga guud, samee jimicsi joogto ah si ay niyaddu kugu dhisanto oo aad ugu ekaatid qof soo jiidasho leh, taas oo qayb ka qaadan karta in kalsoonidaadu ay kuu siyaado. Maxaa yeelay waxaa la ogaaday dadka arrinkani ka welwelsan sababta ay xalka u raadinayaan in ay tahay si ay u heli lahaayeen kalsoonida ka maqan. Ma jirto cunno u gooni ah kobcinta xubinka ragga oo loogu talagalay in ay weynayso ama dheerayso. Jimicsigana waa sidoo kale. Intaasi kadib, waxaan mid uga hadlayaa faa'iidada iyo dhibaatada kala duwan ee laga filan karo siyaabaha wax looga beddelo xubinkaasi. 1. Kaniiniyada iyo kareemada. Kuwaan badanaa waxaa la sheegaa inay ku jiraan fitamiinno, macdan, daawo dhireed iyo hormoonno, kuwaas oo ay shirkaduhu ku andacoonayaan in xubinka ay weyneeyaan. Inkastoo sheekadaasi ay ku guulaystaan ayna dad badan kaga dhaadhiciyaan in daawadoodu ay soconayso, haddana ma jirto wax caddayna oo ku dhisan cilmi baaris lagu ogaaday in faa'iido isbeddel muuqaaleed inay keento. Waxaana la ogaaday in qaar ka mid ah daawooyinkaasi ay dhib hor leh ku keeni karaan qofka, kuwaas oo markii la baaray lagu arkay maaddada sunta ah ee merkuriga
waxyaabaha sunta ee lagu dilo cayayaanada sida bakteeriyada Escherichia coli iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Professor ka mid ah barofesorada ku takhasusay xanuunada ku dhaca xubnaha taranka waxa uu leeyahay wax isbeddel dhirirka oo ay keenaan daawooyinkani ma jirto. waxa kaliya uu qofku ka heli karo ayaa ah in xubintiisa uu awal ka xishoon jiray ama niyad-jab ka qabi jiray inuu barto ama ku hawlo markuu marinayo kareemada, taasoo xoogaa kalsooni inuu ka helo ama xishoodkii ama nacaybkii xubintiisa uu qabay inuu ka baaba'o ay dhici karto. 2. qalabka lagu soo jiido xubinka taranka vacuum. qalabkan waa tubo la gelinayo xubinta kadibna hawada laga jiidayo si loo cadaadiyo. kan waxay keenaysaa in qulqulka dhiigga xubinta soo galaya uu bato kadibna dhiigga uu ku soo aruuro sidaasna uu ku bararo. markaas waxa uu keenayaa inuu weynaaday, taasoo ah mid ku meel gaar ah, laakiin dhibka ka imaan karo ayaa ah in xubinta ay dilaaci karto ama dareenka qofka uu ka tegi karo. shirkadaha qalabkaani gado ayaa kula taliyo ragga inay maalin kasta dhowr daqiiqadood ay sidaasi sameeyaan, laakiin ilaa ay hadda lama hayo wax isbeddel ah oo lagu arkay muuqaalka xubnahooda markii ay dhakhtar la xiriireen. dadkaas qaarkood waxaa dhaawaca ka soo gaaray neerfaha xubnahooda taranka iyadoo dareenkii oo dhani uu ka guuray. 3. qalabka lagu jiido ama lagu dheereeyo xubinka taranka. qalabkan waa wax lagu xiro xubinta oo culays ku wato afka hore, kaasoo xubinta hoos u jiidayo iyadoo culayskaas laga filayo inuu xubinka dheereeyo ama jiida markii muddo uu ku xirnaado. baaris la sameeyey waxaa lagu ogaaday in isbeddel le'eg 1 sentimitir oo dhirir ah inuu ragga qaarkiis ku siyaadiyey markii 6 bilood ay xirnaayeen qalabkaasi, laakiin isagana wuxuu la mid yahay qalabkii hore xagga dhibaatada. isbeddelkaas aadka u yarna ma ahan wax indhaha lagu fahmi karo ama la dareemi karo. sidaasi awgeed markii la waraysto dadka isticmaala waxay ka muujinayaan niyad-jab iyo inaysan isbeddel haba yaraatee uusan jirin. qaarkood waxay kala kulmeen in kaadida ay ka farabaxsato iyo in tubada ibta kaadida ay dilaacdo. 4. gacan kulsidda ama tuujintiisa. tan waa mid aad ugu badan ragga iyagoo si joogto ah u lisa ama u jiida xubnahooda. middaani isbeddel cabbirka ah ma keento, laakiin waxay keentaa in xubinta ay kacdo, taasoo u ekaanaysa in cabbir ku darsoomay, qofkana niyadda u dhisto, laakiin isbeddel joogto ah maahan. sidoo kale caafimaad ahaanna ma wanaagsana. 5. qalliinka lagu weyneeyo xubinka. qalliinkan sida loo sameeyo waa in jidhka laga soo gooyo dufan ama xayr iyadoo lagu talayo xubinka si ay ugu ekaato inuu weyn yahay ama cayilan yahay. tani dhibka ay keento ayaa ah in meeshii laga jeexay xubinka haar yeelato oo markii xubinka uu dareensado kadkaduud iyo xanuun ama qallooc xubinta ay yeelato. marmarka qaarna caabuq ayaa ku dhasho meesha qalliinka ah. waxaa jira qalliin kale oo xubinka lagu dhex talayo wax cinjir ka samaysan si uu ugu ekaado wax weyn oo kale, laakiin dadka loo sameeya qalliinka nuucan ah ayaa ka muujiya niyad-jab. waxaana la sheegaa in dadka shisheeye ee qalliinkaasi loo sameeyey uu ku badan yahay isdilka niyad-jabka awgiis ah. 6. qalliinka lagu dheereeyo xubinka. xubinka ragga waxaa jidhka ku haya seed dheer oo lafta gumaarka kula dheggan, waana seedka xubinka kor u haya. qalliinkan waxaa lagu gooyaa seedkaas kadibna xubinka hore ayuu u soo dhacaa oo way soo laalaasantaa, waxayna u ekaataa inuu weynaaday, laakiin dhibka ka dhasha ayaa ah awoodda iyo istaagga xubinka ayaa eber noqda. ragga sidaani sameeyo ayaa qoyska kulankiisa dhib ku qaba, kumana faraxsana qalliinka ay galeen iyagoo aan ka fekerin waxa laga filan karo. 7. qalliinka lagu saaro baruurta. waa qalliin lagu sameeyo caloosha hoosteeda iyo lafta gumaarka korkeeda ah si baruurta looga saaro uu qofkan u arko in xubintiisa inay dheer tahay ama dheeraatay. qalliinkan wax isbeddel dhinaca cabbirka ah kuma samaynin xubinka, laakiin qofkii ayaa aaminsan inay u dheeraatay, waana nuuc ka mida kuwa kalsoonida soo celsha.
dhaqaatiir badan waxay aaminsan yihiin dadka ay ka dhaadhacsan tahay in xubnahoodu ay yar yihiin oo qasab ay tahay inay wax ka beddelaan ay u baahan yihiin inay la kulmaan dhakhtar xagga dhimirka ah si loo fahmo sababaha ku kallifayo iyo qaabka ay u fekerayaan iyo waxa ay damacsan yihiin inta aanan lagula talin wax qalliin ama daawo inay qaataan talada maanta aan muuqaalkeenna ku soo gudbinayno ragga ku dhibban arrintani waxaan kula talin lahaa marka hore inay dhakhtar u tagaan oo ay ogaadaan in ay dabiici u tahay xubinkooda iyo inay ciladi ka jirto si loogu sheego midda kale xubinyarida kuma xirna inaad haweenaydaada uur u yeeli karto iyo in kale haddii aad aaminsan tahay inaad uur u yeeli karin xaaskaaga mustaqbalka iyadana in lagaa dhaadhici ayay u baahan tahay ee waa inaad la xidhiirtaa dhakhtarka kugu dhow midda xigta ha ku fekerin inaad khalqigaagii iyo abuuristaadii ilaahay aad u beddeshid si aad kalsooni u dareentid sida ka muuqato siyaabaha kala duwan ee arrintani lagu xalliyo ama lacagaha looga sameeyo ma astaahisho inaad dareenkaaga ku weysid oo sariirta dhibaato aad kula kulantid ama aad la kulantid dhibaato cusub oo aadan hore u qabi jirin oo ka daran wixii aad ka cabsanaysay midda saddexaad waa talo ku aadan dhallinyarada aaminsan in cabbirka xubinta laga rabo qiyaas go'an oo uu leeyahay oo qofkii intaasi xubintiisa ay ka yar tahay ay wax ka qaldan yihiin ogow dadka isku dhirir ma ahan isku midab ma ahan isku muuqaal ma ahan sidaas ayayna u kala duwan yihiin xubnahooda taranka marka ha isu daalin inaad raadiso xal dhalanteed ah ee ku kalsoonoo abuurista ilaahay haddii aad qabtid su'aalo ama faahfaahin ku aadan xaaladdaadana la xidhiir dhakhtarkaaga waxaan ku soo gebagabaynayaa si kastoo aqoonta caafimaadku ay u horumarto beddelidda abuurista ilaahay waa arrin lagu hungoobo wixii lagu sameeyena ay ka shallaayaan waxayna u badan tahay dhibka laga dhaxla inuu badanaa ka bato sababtii loo sameeyey qalliinka sidaasi awgeed dhakhaatiirta fahansan arrinkani waxaa ka dhalan karo kuma taliyaan in lagu dhaqaaqo arrintaani aan ka hadlay way ka duwan tahay dawooyinka loo qaato dareen la'aanta iyo shahwo degdega muuqaalkeenna maanta intaasi ayuu ku egyahay daawade haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar hana iloow inaad sabskaraib saarto janalka gambaleelkana aad furato commentiskana iigu reeb haddii aad rabtid muuqaaladani oo kale fiidiyowga inoo xiga insha allah